brother Ilham Umar baa Congress-kii intay ka tagtay iyo aqalkii caddaa ee caanka ka ahaa Mareykanka waxay tiri joogitaan male oo sababay baa la yiri markaasay tiri ninkii timaha jaalaha lahaa Donald Trump mar haddii aan barnaamijka u tuuray stress free baan rabaa iyo meelan ku caweeyo xagee baa kugu haboon baa la yiri markaasay tiri showga sharma السلام عليكم أصحاب شرفت المركز الدولي كجوكتان الله وحنا كرجالي عافماد يا بعض الصبر يا عمل خير متكسر مراد لا إله مراد كسمت خير أقول لكم عن سنة عافماد تام عسيو كان جريودي جنة تقول هوي هوي ولا كل جريودي السمر ما نكسيه ولا شايستا عملنا شو بركيو ولا الزوجين دول بركة سناسي الله هذا كان يلا بدي بشر سمروان من عليه وسنير شو بيش هم باي أمين يا أبو فرعت بير يعني سبب هو خاص كهاي Congress-ka ilaalin jiray ayaa ilaalin jiray laba siba uu ilaalinayay waamido qoftii Ilham Umar ay damees joogtay oo waayadii hore de corona iyo iska jiray xaflado iyo waxa suma jirino iyaduna geesa qaraac wuxuu ugu jirtay ninkii Donald Trump ahaa moogtay corona iyo laga baxay xafladii iyo bilowday iyo qoftii tirinaas inaan u baaray Congress-ka ag joogitiisa iyo joogitaankiisa inaan ka caawiyaan doonanayaa bay tiri bulshada Soomaaliyeed dhexgalo دلهم هران بين قناة سبع ليرين عيدا لو طروا كل وقت ممكن عيدا نايف بقى يقرب كاجي استاكت واجب بين قناة سبع تلفنان كما يشجعوا ويحسبوا بقى سبع على المقراش ما هي تشوف إيش الموبايلات يا حالة الأمان بحالة واحد عويس كرة سيدا سوق بلوم إله العالم سيد الله قيلي يا سحمد ما شاكا يرتبان كل أنا ويا عيبا سلامات من كل هفات هذا عويس كالكا كبلوضي يقاف كالكا كدعاي ومدو حسيتان كيكود اللوليات يحلي عن اللاول هذا الله هذا ده بلشدي سول عوينه يشرب بوي سامنتو كل يهي سومالي هلكا وكجوجو إلا وصعب سمانا وحال هورين بهاي marka ilaaha aan qoslayso wax leeday war imtixaan kan iga qabta oo yaaban bal la yar daawada warkii la yaabo yaasiin tigtay saartay laha ana wax taagan tahay nina kanu الله بعنا مرة إنه يمعد هاي حالته شو حيانا كونغرس على شيء إنه قاعد سميه هاي يدي يسقي بيدن هذا حفلة خاصة وقع عيسو لقينا يا كريس برون هي صوّد هذا هذا واحد عكرا كريس برون حوي كينا أنا لجنا دون بلا صحيح صحيح هذا كريس برون إيو جاستن بيبر إيو وحوي كده جاي كينا هيز برد ده بقول جربك في عين يا قول لك أبكي إنك لقى حسين لبضة دو حوي جيريس يا صومعي مرة هو صوم حين غني هذا يا أبو بهان بلغي يا أبو حلي إنجليز كانوا يسين مرة تروح هذا وحوي قرش السعودية واحد عكرة الوطن كلام لما هو على كاجا إنه هو تا وواحد جوها بون إيش على أبو هالكاجا قاضي ليه ده يرى الصوماليات الله يلحق يا قبيل يقوش إن نقول وعنا هين أيها الكاجا تلاقي صدقت كيف الله ذكرنا يا قلبا علنك عقل السليم علنك إيه حسودي سي حال سيدوها واريا هرير مريكا ويشدين دايرة وهس عالم ما تغنيني ودقا عايز كوي إنه يبيعه والله جيبي نفسي والله ما نديه است ما هسه أم بعد سي والله كأحد صومالي توصل تعود فهمي لكن قرا عالم
duwaayno taadi kala carar lahayd ma badna hell no ku oran lahaa waa idin warada waxa meesha isugu yimi dhalin bay u badnaayeen dheesha leh saaxiibkii jaandheertana saas la suleeyay odaygii sharma boy ah meelo badan iyo marar badan waan arkay soo xaflad jooga ku dhig hasa haatee dhool cadeyska halka kaga muuqday naftiisuba waxay mid aad u faraxsan. I'm proud of you. Watan kala de lama kala harin heerka wacali loo soo dhaweeyay madax siyaasiyiin dhalinyaro waxaan ku way badan muuqata taasoo waa dhaqankii lagu yeerin goobta iyo tilmaanteeda alla aqbal hadaba waxa weeye inta kuma ekay horta shan waa in ragaad nin magaranaysa abaalka garanayay Jabuuti bay leeyahay Jabuuti dalkaygaay meel la ilaawo maaniga ba jecelina Jabuuti kala unto alla ilaahay bulsho Soomaaliyeed dhaqankoodu waxay isagana xilli xaalad ku adag tahay ayaa garab lagu siiyay oo lagu saabto oo leeyahay kan waa baasaboorkaaga kalena waa gurigaaga gacal baad joogtay sida doonto u soco soo Ismaaciil sida ma oran reer Jabuutina waa rune sida doonto yeel ma oran waa kan isagoo aan ilaawin oo boqolaal Soomaali isagoo dhex jooga Jabuuti caawa xasuusta dadka u dhaxeeya la oran karaa from Puntland to Mogadishu to Djibouti Hargeysa to Jigjiga Garissa to Geyga Soomaaliyeed oo idil alla ilaalin dhalinyaro ah dadka aan wada ilaawin oo dhalintiisa wada watagay ya alla aqbal midda kale waxaan arkay Sultan Seer dadka Soomaaliyeed qaar badan waxa jira suwax u sheegay moogtay Sultan Seer oo soo qabsanay iyo Sharma Boyo haatan soo qabsanay iyo waxyaabo noocaas ay dhaliila ka dhigayeen moogtay oo bel hebel macnaha waa sheeg ma markii ugu horeysay oo laba fanaan Minneapolis ay soo ku qabsadaan waa maxay hore ugu qabsan jireen mahal fanaan Minneapolis batuula magaalo weyn marka si waxa sheeg baa la yiri waa ka dareeyay Sultan Seer iyo Sharma Boy bumbuniska iyo balaayada aad ka dhex sheegaysaan oo ka dhex abuuraysaan kuwa og ma aha laba nin oo walaal weeyaan oo gacal iyo xigaal weeyaan Sharma Boyna kan wuxuu arkaa walaalkii ka weyn oo fanka waxa weey qaab kale oo heesa sharaf iyo wanaag buu ugu hayaa ninka kan la yiraahdo Sultan Seerna kanna wuxuu arkaa walaalkiis ka yaro fanaano fanka dhalinyarada iyo fikirkooda ixtiraam iyo wanaag buu hayaa marka dhiiqada la wareegaysaa idinku kiyana ceeb idinka raacin haday doonaan iyaga wax soo wada xaaladii xariir iyo waxa weeye ilka casab haday doonto halka ka soo baxayso iyagoo wada heesiyada arkaysaa marka yuweena wax badan ugu baanahay yaana hadal idinka tegin iyagoo tiyaatar wada saara hadaa doontaan aragtaan baa macquul oo wada heesiya iyagoo ma garanaysaa hees la jiibinayo marka bala aan jirin bulshada ha u bumbuunina buuqna ha u abuurinina ya Minneapolis waa magaalo bulshada Soomaaliyeed oo badan ay ku nooshay 10 fanaan baa ka heesi kara nin walbana waxa weeye de shacbiyadiisa iyo markaa wixii halka uu ka helo danaynaysa ayaa u durbaantumaysa ma fahanti marka xaaladda dhiiqaysan iyo qabiilka la wareejinayo iyo ficilka aan wax ku oolka ahayn la bumbuuninayo iyo adeer qulubtu inuu dab u noqonayaan iyo dareen aan wacnayn idinka yoona idin dhibin watan kale Sharma Boy goormu tagaya Sharma Boy cadaan baa keenay Sharma Boy madow baa keenay miyuu tagaya mise waa joogaya maxay idinka galay fan iyo fanaan buu idin yahay fankiisa ku raaxaysta oo waxaad ka dhageysan kartaan ka dhageysta maxaa noloshiisa iyo hoose idinka galay anigu aad ma sheekeynaya halkaasaan fadhiya dee khasama ah inta hoose ga aragto ilaa ma buumo wato laakiin waxa muhiim ah waxaan ku soo gudbinayaa inaad dhageysato ina garbarka fankiisa dhageyso Mareykanka the reason he comes to America because of shut the fuck up that's not your business bro marka waxa weeye fanaan dhalinyaro stress iyo buuq ma baahna bulsho Soomaaliyeed oo gacal iyo sharaf iyo wanaag wahayo halka kale ixtiraam magaranaysa ayay ku soo dhawow waqti la qaadanaya
buuq yaan laga gelin ma garanaysaa waxaan wacnay waqtigiisa yaan buuq laga gelin muddo xaalada adag iyo xilli aan wacnayn ku jiray xasuustiisa iyo xikmadaha ka qaaday meesha xaasha lilaahi iyo xumaantan laga daayay waxaan dhagaa wacnay horta kale reer Mareykan gabbaatiino wallaahi sida saameynta iyo Soomaalinimadana iyo sharafta iyo milgaha iyo macnaha aad isku dhaweyseen aad ugu saabsteen wiilka u soo dhaweysay aniga aan jeclaadeen inay imaado ya midda kale committee-ga waa dhaxrinay wax soo xigaan ama meesha iga horeeya ya waa socdaa kowde waxa weeyaan aniga ruuxay waan imaan lahaa saacadooda muddo safray wax iskaga jiray back to home shaqo iyo nolol adduuni waxaan la horeyn baan galay watan kale wax kastaba ha ahaatee asbuuc xitaa waan idinla soo joogi lahaa u badnaatee laakiin waxa dhacday baasaboorka Mareykanka kuma geli karta haddii dhicitaankiisu 6 bilood ay ka dhimatay baasaboorkaygu waxa weeyaan 5 bilood baa dhicitaankiisa ka dhimaa marka waxaa la maraa noqotay inaan cusbeenisiiyo mid kale oo cusub dalbado taas markaa kadib aan soo gaaray barnaamijkan oo kale inta dib ugu kulmayna gacal ugu warsanay warqay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.